maanta magaalada Baraabe xarunta gobolkaas waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan wuxuu madaxweynuhu markaa halkaas uu gaaro xariga uu ka jaray dhismaha madaxtooyada uu ku shaqeyn doono maamulkiisa ee Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu la hadlay warbaahinta wuxuu fariin u diray dhalinyarada wali ka tirsan al-shabaab ee ka dagaalamaya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu baaqay inay ku soo biiraan maamulkiisa maadaama uu sheegay in shaqo abuur loo sameyn doono sidoo kale waxa uu sheegay maamulkiisu qorsheynayo sidii dhawaan loo furi lahaa oo loo dhisi lahaa tegada weyn ee magaalada Baraabe halkaas uu sheegay in dad badan oo ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo intuba ay ka shaqeysan doonaan sida uu sheegay nabadaan siiyay ilaa inuu noo ziyaadaan ilaahan ka baryeena waxaan aad ugu mahadcelinaynaa walaalaheen AMISOM oo dadaal badan u galay in nabad laga helo dhulkan dhiigoodan u horay runtii aad aan ugu mahadcelinaynaa sector 1 dadaalka ay ka wadaan Soomaaliya oo dhan gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Baraawe oo caasimadii Koonfur Galbeed ah walaalaheen AMISOM aad aan ugu mahadcelinaynaa waxaan kaloo u mahadcelinaynaa ciidanka geesiinta militariga ee Soomaaliyeed iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo kuwa Koonfur Galbeed dadaalka ayagana ay ugu jiraan in dalku nabad noqdo kuwa nabadiidkana laga adkaado dawladnimadana la soo celiyo iyo sharafta runtii aad aan ugu mahadcelinaynaa mahad Ilaahay askale walaalaheen gaar ahaan dhiigooda noo horeyna aad aan ugu mahadcelinaynaa runtii waxaan salaamaa wasiiradda oo wasiir ku-xigeenka oo haweenka oo dawladda federaalka iyo ayadoo dhawaan ah dadaalada badan ay wadaan waa ugu mahadcelinaynaa salaadiinta oo dadaal badan u galay in Koonfur Galbeed iyo dawladda Soomaaliyeed hore u dhisay Koonfur Galbeedna dadaal badan geliyay Suldaan Xaydar iyo Suldaan Warsam oo garbahayga taagan oo dadaal badan u galay dhulkan inuu nabad noqdo dadkan ay aayahooda ka tashadaan runtii aad aan ugu mahadcelinayaa runtii wasiir ku-xigeenka oo asigana dadaal badan u galay runtii muddo badan la joogo oo asiga naftiisa Baraawe dadaal badan sameeyay runtii aad aan ugu mahadcelinayaa waxa kale oo u mahadcelinayaa maamulka gobol iyo degmo dadaalada ay ka wadaan runtii dadweynaha reer Shabeellada Hoose gaar ahaan reer Baraawe dad nabad jecel taariikh la waaye taariikhdoodii iyo dadaalkoodii iyo sida nabadda u rabaan iyo sida nabadda ugu shaqeeyeen aad aan ugu mahadcelinaynaa dhamaantooda yar iyo weynba waxaana leenahay nabad la'aan waxba lama sameyn karo nabadda ayaa wax walba ka qiimo badan in nabadda lagu dadaalo nabad haddii la helo wax kasta waa soo noqonayaan runtii waxaan aad ugu mahadcelinaynaa SSF dadaalka ay gelisay dadaalada oo degmooyinka oo dhan reer Koonfur Galbeed SSF howlo badan ay ka qabatay gaar ahaan maanta gurigan quruxda badan oo hortaaganahay kaalmada ay noogu geysteen ay noogu dhiseen ay kharashka geliyeen SSF aadan ugu mahadcelinaynaa European Unionka dhamaantood waxaan u mahadcelinaynaa Soomaaliya dadaalada ay ka wadaan gaar ahaan Koonfur Galbeed markii dawlad jirtay iyo ayadoo dawlad la'aan ay hadda dawlad jiraba runtii European Union mar walba Soomaaliya way garab taagan yihiin dhinac walba